سؤالي waxaan rabaa inaan soo gudbiyo kelmadaha dadka gastiga ama ay jeedinayeen ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo tababaraha iyo ama macalinka kooxda kadib isna wuxuu soo dhaweynayaa gudoomiyaha ama madaxweynaha kooxda markaas waxaan ku jirnaa abamarinaha aan guddoonsiinayno ciyaaryahanada loogu talagalay inuu guddoonsiiyo macalinka suqurba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تعالى يا معصم على سلوك الرسول البديل وحكم من سفر مدحوينه وجود شخص عاد حملنا الجيلاني في غرفته في ضمان معلمين الوصول البلد كمان تلقى السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا وحاشا معلمين لكم جميعا سبورتس سبورتس وحضرين احترام والمغلب يقدمون هذا انت سيماضو وحكشتو انتهي غيرين كشتو انتهي مكحول برانتهي اما اسألوا صوت انتهي وحاجة سابونا قاري لكن دمان ما سنتحي سبورتل كينا وعن هذا waxaan jeclaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha kooxda sacaada cabdullaahi jilaani si uu u abaalmariyo saddexda ciyaaryahan daafaca ugu fiican kooxda sacaada labo dhexda ugu fiican kooxda sacaada qadka dhexda ugu fiican kooxda sacaada saddex ciyaaryahanka ugu fiican kooxda sacaada gudoomiyaha cabdullaahi jilaani soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم هذا waxaan uga galeynaa abaalmarinada ciyaaryahanada daafac ugu fiican waxaa loo guddoonsiin doona ciyaaryahan ibraahim abuna waxaa ila soo dhaweysaan axmed kalaayo ah daafac ugu fiican حمله أحمد كلامي يدافع وفي عن كوحدة سعادة هذا واحد رسول لسان خط كده حلو وفي عن كوحدة سعادة سيسك لصور عفيت أنا بيرنريت لصور عفيت وحا هديتي سبتوسيد دولا مدحوينها كوحدة سعادة مستر جيلاني مستر جيلي عياريها كاس روحة واي أليس ayaa leeyahay dhexdii ugu fiicneed siisankii ama ciyaaryahankii khadka dhexa ugu fiicnaa siisanka kooxda sacaado alis ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan la guddoonsiiyo hadiyadiisa uu mutaystay weeraryahankii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda sacaado waxaa guddoonsiinaya mr salim ciyaaryahan bakar salim yamaani alyamaani ciyaaryahanka waxaa weeye حسين كسمير
ونفري سكرتان مدحرة سوق عندي تبغين يقولون كي حركته ودوبينتي waxaan soo gaarnay gabagabadii xalfadda waxaan rabnaa hadda inaan soo bandhigno xilli ciyaareedka soo socda ama seasonka soo socda kooxda fanaanadii ku ciyaari lahayd ujeedaan fanaanadaas ay ka qoran tahay magaca sacaada iyo xabadka oo magaca kaga qoran yahay lama xamar boston waa kambaniga oo maalgeliya ama ka caawiya dhinaca dhaqaalaha madaxweynaha waxa uu fanaanada cusub oo rabo inay ciyaareedkan ku ciyaaraan ciyaaryahanada kooxda tababaraha ama macalinka kooxda Mustafa Xasan Banna kalluun macalinka kaaga mahadnaqoon ilaa maadaama kooxda sanada soo waday insha Allah hadda waxaan isku nimid meel oo استوشينك السعادة الله لكن إن شاء الله سنضم بحرجيننا أما إسبرتيو أما مالك كبير كبير أو أنا يا هذا لأن أنا مشهد إتاني مالك كبير نجي إن شاء الله صاحب يال شرفت هذا أول ما سنتين سوق الجيل والجمهور علينا سيد القرب بدن oo aad waqtigeena ugu soo horteen waxa kale ay soo dhigasheen xalfadda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta kale oo halkan fadhido ugu horeeyay hadda waxaan rabaa marka inaan u dhiibo macalinka kooxda si xalfadda ugu soo raalli ahaada waxaa jira qof ka mid ah martida oo ugu talagalay inuu qof isla meesha fadhiyo abaalmarin guddoonsiiyo marka waa u wacaya shariif fuukaan qofka artada guddoonsiiyo السلام عليكم أنا هو شريف محسن مؤمن ما أنت وحنا هذه قدوم سينيا معلم كيجا حسن بشير علي أنا ما سنتي صاحبي سوق البيت فينا وقت لا وقتين أنا سوق المشاكل بدأ جوتي كوحدة سعادة وروحهم مليئة وحقهم مليئة الحرمة في العيلة بالتعرف عليه سيرو الشيغان صاحب هذا وممكن يقول ريسي وروح لماذا حلوة كده سنة بصراحة إن شاء الله وحق الله أنت كل شفتوا إني سيج لدوتو حلفلها أو يوم بدون دوران ملك كم يومين لو بدون دوران سيدو بدون مقاعدة سيدو فلك واحدة يدا واحد اللي سيدو يشتري بعلك إذا سمعتوا من جوير أما واحد اللي عنده قريب كبوسة أو سيديلو هذا هو اللي معلك يعني كذا سيدو كله aad baa ugu mahadsantihiin idinka kasoo qaybgalkiina iyo inaad waqtigiina u soo horteen oo idinkaga waxcelina waad ku mahadsantihiin runtii ciyaaryahanada kolay waa laga sheegay waa lala dardaarmay inaad qof walba xirfadda uu leeyahay soo bandhigaysa macnaha aan aqrin lahayn ama aan xishood lahayn ama xagaar lahayn
ciyaaryahanno kala badan baa meesha fadhiya dhalinyaro kale oo iyaga ciyaaryahanno ka tirsan iyagana abaalmarino la guddoonsiiyey macnaha ma ka dhigin abaalmarintaas in aad tihiin dad oo iyagana booskooda kasoo bixi waayo laakiin waa motivation ama dhiirigelin marka idinka inaa nimankaasay maanta u qaateen idinkana u qaadataan aad baa ugu mahadsan tihiin way noo sii soconaysaa marka gabagabadii waa soo gaartay waa inoo sii soconaysaa xafladda waa mahadsantihiin marka sharafta waxaan ka codsanayna salaada soo dhow waa ku mahadsantihiin ajiibtaankan soo ajiibteen waxaad ajiibteen qayb ka mid ah xaqa qur-aanka muslim mid kaloo kuliya oo idaa dacaaka faajibu aad iyo aad mahadsantihiin boqolkii boqol alxamdulilah ilaha maadle mar kasto ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu wadankeena amni iyo cadaalad iyo shaqeynta inuu ilaahay umad soomaaliyeed ama nabi sabaad inuu sahlo maalinta jimcaha waxaa jirto saacad ilaahi subxaanahu watacaala hadduu qof kasta baryo uu ajiibayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi iltamisuu saacatan bacda alcasr saacadaas waxaa la yidhahdinaa casri gadaal oo kale hadda malinaaba kala waaye qof kastoo dhalmada meeshaan fadhiyo waajibkaas ha guto ha ajiibo nabiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid iska hadla oo mal abaal ku hadla wuxuu ahaa wamaa yantiqu canha wa in huwa ilaa wahyun yuuxaa nabigu wuxuu ahaa mid hadal oo ilaahi subxaanahu watacaala uu soo dhiibaayo malku jibriil calayhi salaam nazala bihi ruuxu lamiin marka ilaahi subxaana wataala waxaan ka baryaynaa inuu wadinka cadaab loo sameeyo inteena meeshaan fadhiisana inay haddaba ilaahi subxaana watacaala baryaan kastoo ay jecel yihiin adduunkooda iyo aakhirada oo dhan inay ku dajistaan soo ilaahi subxaana watacaala waajibo waxaa laga yaabaa dhammaanteen mid ka mid aynu ku jirto in salaada baro rasuul sala alayhi wasalam wuxuu dhahay rubba ashcafa aqbara madfuucu bilabwaab badanaa waxaa jira kuwa albaabada loo celiyo oo tima rifrif leh markaasuu dhaliyo aqsama cala allahi ila abada mid ka mid ah in ilaahi subxaana watacaala ku dhaarto ilaahi subxaana watacaala beertiisa uu baarafalaa hadduu dhan maanta yaa rabbi ama u dadka uu sheego maanta waa imaanaya ilaahi nidigu dalacabadkiya imaanaya marka laakiin dadka marka maraysanaya rifrifkaana uu dhaca marka dhammaanteen waxaa ku jirta kaasoo kala ku jira inay ilaahi subxaana watacaala noo baryaan wadankeena wuxuu u baahan yahay cadaalada u baahan yahay dhalinyarta cadaalada u baahan yihiin maanta dhalinyarta soomaaliya waa dhalinyarta 75 ama dalka keliya dhalinyarta 75 waa 75 alxamdulilah kuwa ilaahay wuu ay waajiraan kuwa ilaahay maantana ولذلك الشيطان يذكر الواجبات وقال الله سبحانه وتعالى أفضل من الله سبحانه وتعالى سوى منه ما تنسيه على هذا وهذا جوتا هورينا لجوتا آبها لجوتا يمكن ما تفضلوا وطول ما يحتوه بالتلكورة وعوائي هورينا على شيء آبها قلت لكن نسيبه من الله ما تنوح علامات بلا أفضل بصور بره نسيبه أوديه الحمد لله لها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما لم يستقبل وذكر وتعالى قال هذا قال هذا قال هذا قال هذا أثر حقيقتنا على من آيات الله وعلى آخرنا وهل كان اسمك فيتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين وننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا
الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله صدق الله العظيم إلهنا لو أنفعه كتاب قرآنك dhammaantiin waan iska magaceynaa mar walba waqtiga ay la socoteen sodogeyntiina xirtooy oo kala tahay ilaah tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
maanta aad aan u faraxsanahay waxaan guuleystay kooxdeyda xalbad ay qabanayso khatax ninka u fiican waxaan ku faraxsanahay horumar wanaagsan inaan sii sameeyo ficil inaan tiigsado meesha ay maraan insha Allah waxaan rajaynayaa marwab guul inaan gaaro halkan waxaan u mahad celiyaa macalinkeena bana oo marwab oo garoon inaan ku jiro idil geliyay macallimiinta aan ku jiro waa u mahad celiyaa macalinkeena bana insha Allah bismillahir rahmanir rahim ana xuseen abdul aadi oo faraxsanahay ma sha Allah ambaliyada iyo macnaha kastaan gudiskiisa aadi saacada ma sha Allah horumarkan gaarnay aadi oo faraxsanahay sida kale macnaha u mahad celinaa macalinkeena xasan bana aan macnaha assistii kale macnaha macalinka assistiga oo ka khasaaro ciyaartoyda inta badan waxaan rajaynayaa dadaal أنا أول مرة معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمة الإسلام كمال كسر دوكا جوكت وإذن سلام كدب ما شاء الله ما أنت فرحتي لما سكوبي كرات يات وفرح سنة ما دام معك كقول استباز تفندر من سعادة تيم إلى ما له كسكو معلمين تي عياري أنا هذا ما نسي قرب سوق خبتين هذا دمان وما سنتين أنت كسوق خبت في حفلة أنت كلا يعني لا وقتها يدي وعنا هذا حبيبي ونفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تأتي أدفن فرحسنا إنك سوقف كل حفلة سنة جورد سعادة. أتي أدفن فرحسنا ونوع بلينا سنة جورد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تأتي هذا فرحسنا يكون ذي السعادة عن تغيير خاص وجينا يا قول نسي جارا إن شاء الله هم بلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت تيم سعادة وحنا كان بدبر دقيقة سنة جورداني وحنا نقضي نقول جورداني دبر سنة كان وحنا جدوسي كوب كان يماليزيا وهذا ما سنتين كسر سعادة تيم.